soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan rabaa videoga inaan uga hadlo liiska hubinta ugu dambe ee aad u baahan tahay alaabta aad inta aadan supplierka ama inta aadan warshada aad kusoo iibsanaysid ama inta aadan retailerga aadan aadin. maxaad u baahan tahay inaad hubisid waxyaalo aad iyo aad u muhiimsan ayaa jirto. hubintan waxay ka duwan tahay hubinta aad hubinayso alaabta inay iibsamayso markaad isticmaalaysid softwareda maxaa la jiray best sellers rank, Amazon best sellers rank, Jungle Squad, Amazon iyo software aad isticmaalayso waa ay ka duwan tahay. taasi waxaad raadinaysaa un keliya ma ku iibsamaysaa alaabta, miyay leedahay demand, micnaha dad alaab la doonayahay magaalada isla markaas socoto miyay tahay, miyay buuxisaa shuruudaha oo macnaa alaabta la keeni karo, soo geditaankeeda, qiimaha kiika, intaas ayaad hubinaysaa. laakiin qaybtan waxay ku hubinaysaa waa hubitaanka muhiimka ah oo ugu dambe aad sameynaysid kahor inta aadan keenin. waxaad u baahan tahay kowda in aad xaqiijisid alaabta aad dooratay in aysan ahayn alaabta la mamnuucay. waa muhiim, midda koowaad aad u baahan tahay waa marka inaysan ahayn alaab la mamnuucay oo Amazon lagu iibin kara sida alcoholada iyo waxyaalaha sunta kii kale aan la ogoleen. waa inaad ogaataa qaybta hazardous, waa inaad ka fiirisaa alaabta aad dooratay. waa number 1, waa lambarka koowaad. lambarka la xigo waxaad u baahan tahay waa inaad ogaataa alaabta aad keenayso in aysan lahayn trademark ama patent. trademark waxaa waaye alaab isla markaas la sumadeey, sumadaas nin aan ahayn qofkan ma keeni karo. patentna waxaa waaye ogolaasho xuquuq qofka loo siiyey alaabta keliya inay keenaan. waa dareemi kartaan Soomaaliya ama wadamada qaarkood waxaa jiro kambuniyo keligood loogu talagalay in ay tubaaka ay keenaan ama sigaar iyo waxaas ay soo geliyaan wadanka, ama wadamo keliya u ogolaadeen hal kambani inuu qamri soo geliyo ayaa jiri karto. marka patent waxaa laleeyahay waa rightigaas ama xuquuqdaas qofka hal kambani wax uu keeni karo. haddii aad keento waa lagu qaban karaa. macnaha waxaa waaye waa soo iibsan kartaa, waa keeni kartaa, balse mamnuuc ayay kaa tahay. marka waa inaad hubisaa inaysan trademark oo qof kale aysan ahayn alaabta aad keenaysid. boxiga inuusan macnaha qof kale alaabtiis aysan u ekeen, ay alaabta ay ku duwan tahay magac kale qof kale inuu yahay, inaad isku soo hubisid ayaa loo baahan yahay. haddii aad keentid macnaha alaab oo macnaha maxaa la jiray Amazon, Nike, waa lagu soo qabanaya. marka waa mamnuuc, lama ogolo, waa trademark. patentna waxaa waaye company khaasatan ayaa xuquuqdaas loo siiy in alaabtaas keliya iibiyo. waa inaad taasna aad ku hubisaa alaabta aad keenaysid. midda kale saddexaad waxaad u baahan tahay in aad hubisid alaabta aad keenaysid in aysan ahaanin alaab xilliyeed ama alaab isla markaas oo waqti khaasatan keliya gadmayso. xilliyaha roobka, xilliyaha qoraxda, xilliyaha ma loo baahno. waxaad u baahan tahay alaabta aad keenayso alaab ku gadmi karto sanadkoo dhan, waqti kasto alaab loo baahan oo macnaa qofka uu doonaya inay noqoto. haddii aad keentid dalad oo xilliyaha roobka keliya ayaa la iibsanaa, ama haddii ay badato xilliyaha kuleelka ayaa la iibsanaa marka dadka qoraxda ay isku dadi rabaan. marka waxaa waaye seasonal product. alaabta noocaas oo kaleed waa inaad iska ilaalisaa. waa in aad gadataa alaab oo sanadkoo dhan gadmayso. midda kale afraad waxaad u baahan tahay waa in aad ilaalisaa faa'iidada aad ka heli haysid alaabta aad keenaysid. net profitka waa inaad ilaalisaa. Amazon qayb ayaa jirto oo aad baran doontid marka alaabta aad iibitaan aad bilowdid. waxaad u baahan tahay inaad ogaatid imisa ayaad hashii alaab aad ku keentay, imisa ayaad ka iibin doontaa. qaybtan waxaan sidoo kale ku eegi doonaa qiimeynta alaabta aad macnaa Amazon aad ku gadaysid. marka waxaad u baahan tahay inaad keentid alaab isla markaas qiimaheed ilaa iyo $20 ilaa iyo wixii ka koreeyo ilaa $50 aad gedi karto. qiimeed inaad keentid ayaa loo baahan marka, ama pricingka marka ka go'aansanaysid. waxaa jirto qayb oo isla markaas paid per click ama xayeysiinta lacag lagaaga qaadanayo markaad xayeysiin aad sameynaysid. qarashkaas waa inaad macnaha ka mid ahaataa waxaa la jiray qiimaha alaabta aad keenayso.
tax ayaa jiro ama fees ayaa jiro, qiimaha alaabta waa inay macnaha ku xisaabisaa. marka markii aad alaabta halii aad ku keentay aad ku jartid canshuurta iyo isla markaas maxaa la jiray halaa aad ka xayeysiin doonta, waxaad u baahan tahay in lacag fiican kooban macna ay kugu soo hari karto oo isla markaas aad dhaysid waa faa'iidada halkii alaab. marka waa inaad taasina aad qiimeysa aad ogaataa, miyaysan ahaanin macnaha alaabtu waa raqiise dollar ayaan kusoo gaday ama nus dollar ayaan kusoo gaday, maxaa la dhihi jiray waa imaanaya waxaan ku gadi karaa $2. qarashaad kale aad geli doontid ayaa jirto, waxaan ku baran doonaa qaybta priceka. waa inaad hubisaa in faa'iido aad meesha aad ka helaysid. midda ugu dambe waa in ay noqotaa alaab isla markaas aad sii qiimeyn kartid ama sii badin kartid ama micno kale aad u yeeli kartid. micnaheed waxaa loola jeedaa haddii alaabta aad keenayso waa inay noqon kartaa alaabka lagu sii dari karo ama wax laga bedeli karo. kasoo qaata haddii aad qalin aad iibinaysid, qalinka aad iibinayso uu inuu noqon karaa qalinkaas iyo book wax la gadi karo bundling ahaan, ama aad magac aad u bedeli kartid, ama color ahaan, ama macnaa packagingkiis aad bedeli kartid. waa inuu ahaadaa macnaa product differentiation alaab u sameyn karta waa inay ahaataa. marka saas ayaa loo baahan, macnaa yaysan ahaanin alaab fixed aan la bedeli karin, sideed lay ahaanayso waxba aan lagu bedeli karin. marka intaas ayaad u baahan tahay inaad ogaatid ka hor inta aadan supplierka aad aadin. hal mar haddii intaan aad macnaa alaabta aad dooratay aad ka hubsatid, maasha allah waxaa waaye supplierkaad aadaysaa, alaabta free waxay ku tahay Amazon in ay kaa hor istaagto, waayo waad hubisay, khatar ma ahan, qof alaabtaas kula iibiyo ma jirto, magac dadaad ma aadan wadatid, waxaad ogtahay macnaha alaabtaas inay kuusii gadmayso sanadkii dhan, macnaha 3 bilood alaabta meesha itaasha ma aysan gadmin, lacagaa lagu soo dalaaca misdhehaysid. waxaad leedahay faa'iido fiican waa ka helaysaa, mar hore waa xisaabisay. ka bacdina haddii isla markaas adii alaabtii aad macnaha lacag profit aad ka sameynaysid, alaabo kale isku dhexle lifaaqi karto, aad sii qiimeyn karto, sii micneyn karto, sii qurqurxin karto inay noqotaa. intaas ayaad u baahan tahay ka hor inta aadan supplierka aadin.